الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة maamulka masaajidka iyo culimada iyo dadweynaha waan mahadnaqayaa intaa kadib waxaan isku dayi doonaa caawa inaan ka hadlo mas'ala min masaa'il الاجتماعية mas'ala ama arrin ku saabsan social life-ka ummaddeena dhibaatooyinka ayna haystee u baahan in xal loo helo waxaa ka mid ah mashkilat التanaasuc والاkhtilaaf arrinka isqabsiga iyo kala gadisnaanta iyo xal u helid la-aanteeda soomaali markaynu nahay dadka kama mashkilad badnin xaqiiqada waa taa waxay u badan tahay dhibaatada soomaali dhex taalla dhibaatooyinka ugu fudud ee bulshooyinka adduunka ka jira inay ka mid tahay laakiin innaga marka laynoo eegiyo xalkaynu u raadinay waa waxaynu la kici kari la-nay xaggay iska qaban la-day markaa waxay yidhaahdaan bini aadamku inuu kala ra'yi gadisnaado kala aragti duwanaado siduu wax u qiimeynaya kala gadisnaato masaalixda iyo danaha uu leeyahay kala gadisnaato waa wax fitriyo ka mid ah abuurka bini aadamka waxaana culammadu yidhaahdaan waxay ka mid tahay mawaadic alimtixaani linnaas waxyaabaha dadka alle subxaanahu wa tacaala uu ku itixaamay ee ku balkeeday sida wejiyadiinu u kala gedisan yihiin aynu kana waa hebel kana waa hebel u odhanayna u kala gedisannahay ayaa maanka ka dambeeyana u kala gedisan yihin sidaa ilaahay inoo abuuray aynu kala aragtida bidhaameed u nahay ee qofna qof bidhaantiisa ku qaldamaynin ayaa maskaxda ka dambaysaana kala gedisnaanteeda u leedahay baahiyaheennuna u kala gedisan yihin masaalixdaynu xaqiijanaynaana kala gedisan yihin xuquuqdiiyo waajibaadka aynu leenayna kala gedisan yihin ilaahayna wuxuu ku tilmaamayaa walow shaaa rabuka lajacala annaasa ummata waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabuk walidalika khalaqahum watamat kalimatu rabbika laamla-ana jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin rabbi hadduu doonayo dadka mid quru ka dhigi lahaa kobi hal qofunoo la kobiyeeyey waa laynaga dhigi kari lahaa dad si qura wada fakera si qura wax wada arkaa oo si qura baahidooto waxay ku kala gedisayin jirin rabbi waa inaga dhigi kari lahaa laakiin sida alla uu abuuray waa walaa yazaaluuna mukhtalifiin kama zuulayaan inay kala gedisnaadaan baa ilaahay leeyahy ilaa man raxima rabuk mooyaane inta alla u naxariistay mooyaane qur-aanka waxaa ilaahay inoogaga warramayaa qolo isqabatay oo nebi isula gar timi oo midna 99 laxood leeyahay midna 6 qura leeyahay oo kii 99 lahaa leeyahay war laxdan aniga igu soo wareeji inuu isagu boqolaystaa buu rabaa waa kii 99 ka haystay ayaa weliba wuxuu raadcaynayaa inuu kan xabadda le ka qaado hal laxa haysta inuu lexdiisa ka qaado waina kaiira min alkhulaطaaءi layabغi bacduhum calى bacضi ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati waqaliilu ma hum baa la yidhi dadka wax isku darsada in badan oo ka midi way isku xadgudbaan dadka wax isku darsada in badan oo ka midi way isku xadgudbaan baa la yidhi kuwa iimaan iyo camal saalixa laga helay mooyaane
وقليل ما هم بالغين كوا سنوات ترير هذا بيض أبوك بن آدم كو عين كاية هي هدنا واحد جرا وحدتك وداغو وهدب انت وداغا انت اي ليك تهي بددكو اسكو سو دوانشيهيسو ليغي bulshooyin baa jira kala afa aan horeba isu fahmin idan bulshada isku afka ahi way ka dhowdahay inay isfahamto bulshada kala afka bulshooyin baa jira kala diina idan bulshada isku diinta ahi way ka dhowdahay inay isfahamto bulshooyinka kala diinta bulshooyin baa jira kala dhaqama ah bulshada isku dhaqanka iyo thaqaafada iyo taariikhda wadaagta way ka dhowdahay inay heshiiso bulshooyinka kala thaqaafada bulshooyin baa kala midaba oo bar madow iyo bar cad iyo wax kale soo haya way ka dhowdahay bulshada midabkeedu isku wada nooca eeg yahay ee isku dhadhow yahay inay iswada idan ummad kasta Soomaalida markay sifaynayaan dadka kale waxay ku tilmaamaan dad homogeneous group dad nooc qura wada ah waxa qura wadaaga diin qura sheegta af qura ku hadla intooda badani midab qura leh يعني دد homogeneous waxay isku khilaafsayna yartahay laakiin maxaa dhacay dunida dad kala diima abaan wada nool dad kala afaba wada nool dad kala dhaqama wada nool inagii la yiri intaas wadaagtaana waa wada noolaan kareelaan maraynu qabiil soo hayno mar qabiilku markuu inta kala soo baxo isagu jilib isu sii qabto maraynu magaalo isu qabanno intii yarayd ee Soomaaliga sheeganaysay way sii qaybsamaysaa way sii yaraanaysaa duniduna waxay rabtaa inay isu tagto oo aqliga Soomaaligu markuu reerka joogo ayuu laandheeraha nafmooda laakiin dunidu waxay u aragtaa ummaddu laandheeranimadeedu inay tiro badnideeda saadaradeed baa ummad waliba waxay raadinaysaa inay badato si ay dadka isaga dhicin karto si dhaqaalaheedu uu kori karo waayo tirada bini aadamka iyo tayadiisa wax badan baa ku xidhan markastoo aad sii yaraato dunida waad sii xoog yaraanaysaa xaggee inaga dhibto inaga haysataa marka haddaynu leenahay diintii waa isku haysa mid baynu kannay oo islaam mooyaane haba jiraan muramo hoose wax kale oo aynu haysanaa ma jirto haddaynu leenahay dhaqan iyo af baynu wadaagnaa haddaynu leenahay dhul baynu wadaagnaa haddaynu leenahay midab baynu wadaagnaa haddaynu leenahay taariikh baynu wadaagnaa xaggee iska qaban la'day marka waxa la yiraahdaa bini aadamku horta sidiisaba intuu nool yahay ma mushkilad waayo laakiin wuxuu ku kala gadisay mushkiladda sidii uu xalilo maxaa xal ah munaazacaadku insaanka waa u imanayaan mar kastaba mar haddii maskaxdoodu say u fakaraysaa kala gedisan tahay aqoonta ay leeyihiin kala gedisan tahay baahida ay leeyihiin kala gedisan tahay masaalixdooda hoose kala gedisan tahay mar kastaba waa imanaysaa in wax kala ra'yi lagu ahaado laakiin sidee loo xalilaa ummadda bay yidhaahdaan mushkiladeeda xal u raadin kartay solution u heli kartaa waa ummad jiri karta oo noolaan karta oo hore u socon karta ummadda se mushkiladeeda xal u weyda waa ummad burburka uu bilow u noqdo dunta oo baaba'da qofka Soomaaliga inta badan mushkiladda markuu xalka u raadinayo consequences-keeda ma eego maxaa ka dhalanaya haddaynu sidaa yeelno maxaa dhalanaya haddaynu kala tagno maxaa dhalanaya haddaynu isu tanaasulno maxaa imanaya haddaynu iscafino maxaa consequences-ka maxaa ka ratibmaya ee waxaynu naqaanaa masaasay yidhaahdeen haa yeeli mayno inaguna hogejiya saa hadday yidhaahdeen inaguna waxaynu leenahay may socon mayso ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina leeyahay wa atiicu llaha wa rasuulah alle iyo rasuulkii aqbala jidka alle waa idin wada qaadayaa mara
wixii alla idin soo dejiyay ee waxiyo waxa loogu talagalay inuu murankiina yareeyo ee alla iyo rasuul aqbala oo wala tanaazacu ha isqabanina laakiin haddaa isqabataan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo soo horreysiiyey consequenceska maxaa dhalanaya aayadani kama warramayso haddaynu isqabanno saynu kala baxaynaa aayad kale ka warramaya laakiin aayadani markiiba waxayna hor dhigaysaa haddaynu isqabanno oo xal samayn weyno muxuu noqonayaa risalku muxuu noqonayaa waxa soo baxaya muxuu noqonayaa ilaahay wuxuu leeyahay fatafshaluu watadhaba riixukum alfaa culamaa'i luga waxay yidhaahdaan liltacqiibi watartiib ka hore hadduu dhaco waxa ku fan jira bay wadaadadii soomaaliyeed odhan jiray waxa ku fan jira inay tani timaado alfashal fashalka fi luga alcarabiya adacfu baa la yidhaahdaa tamar darri muranka waxa ka dhasha baa ilaahay leeyahay tamar darri iyo watadhaba riixukum ay watadhaba dawlatukum xooggiinna iyo magaciinna iyo midnimadiinnuna waa baaba'aysaa markaa ilaahay wuxuu leeyahay alliya rusul raaca war ha murmino ha isqabanina hadday se dhacdo taniyo ah xal u weydaan risaltka markaaba imanaya consequenceska ka soo baxaya natiijadu waxa weeyaan fatafshaluu watadhaba riixukum natiijada soomaaliya ma aragta markay isqabatay gar iyo gardarraha wuxuu doonaha noqdo waxa isku hayaa ee ay xal waayeen murankoodii ay xal u waayeen natiijada ilaahay wuxuu leeyahay waa fashal iyo dhihaabu riix tala bixinta alla bixinayaa maxay tahay markaa kow wasbiruu ina allaha maca asaabiriin baa la yidhi wasbiruu sabra waxaa jira dhibaatooyin badan oo dulqaadku xaluyeyba adiga islaantaada haddaa wax ku murantaan inaad iska adkaysato iska dulqaadato waxa laga yaaba mashaakil badan inay xallisho haddaad xagtin kasta tidhaahda waa ka jawaabayaa nololi jiri mayso mid guri ha noqoto mid reereed ha noqoto wax kasta oo dhaca haddaad tidhaahdo waa inaynu jawaab ka bixinnaa waxba kama soconaya ilaahay wuxuu leeyahay marka hore wasbiru sabarna guushu waxay ku jirtaa inaad sabirto ina allaha maca saabiriin haddaad alle maciyadiisa rabtaan iyo inuu idinla jirana ilaahay subxaanahu wa tacaala inta sabirtuu ma coodaya aayaad kale ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa daa'i lumami asaabiqa muslimku uguma horreyn ummadaha ummado kaloo cahdigii nebi maxamed ka horreeyey baa jira ilaahay taariikhaha uu qur-aanka kaga warramayo waxaa loogaga warramayaa inaynu ku waaya aragno qoom yahuud la yidhaahdaa ilaahay ka warramo yahuudi hadday dhalasho noqoto waa niman nebiya ku abtirsada nebi yacquub nebi isxaaq nebi ibraahim yacquub baa israa'iila reer banu israa'iil waa ilmo nebi yacquub nebi yacquubna waa ina nebi isxaaqna waa ina nebi ibraahim hadday dhalasho tahay waa niman nebiya ku abtirsada hadday rusul iyo risaalaad tahayna qaar badan baa loo soo diray ambiyo badan ayaa loo soo diray laakiin markay weecdeen bukaanada ku dhacay reer banu israa'iil qur-aanku meelo badan buu kaga warramaya waxaa la dhaha fii suurati albaqara waxdaha 268 aayadood weeyaan 110 aayadood reer banu israa'iil bay ka warramaysaa guushood iyo guuldarradoodaba ilaahay markaa wuxuu reer banu israa'iil ku tilmaamay sifadatan ba'suhum baynahum shadiid taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa waa niman hadday isqabtaan dagaalka iyo dhibta dhexdooda marta ay adag tahay baa ilaahay yidhi adigu waxaad moodaysaa baa ilaahay yidhi inay wada socdaan laakiin quluubtoodu waa kala jeedaa dad wada socda maaha cilladu maxay tahay maxaa sida tani ugu dhacdo laguma cilayn oo keliya hadda sharcigii bay ka tageen oo qura laguma cilayn waayo wada joogga bini aadamku xataa bay yidhaahdeen waa mas'alo caqligu uu xallili karo qaybo ka mida
dhul badanoo iminka gaaladaa waa la wada joogaa diin laguma wada joogo caqlaa lagu wada joogaa sidaa ogeed baa ilaahay wuxuu yidhi dalika biannahum qowmun laa yacqiluun baa ilaahay yidhi waa duul aan garaadkooda isticmaalayn waxay ku kala tageen waa duul aan caqli lahayn baa ilaahay u tilmaamay subxaanahu wa tacaala ayuha alaxiba xalku aan kala yaacna maaha tusaalaan idin siinaya waddankan yar ee biljam la yidhaha waa waddan aada u yar waa waddan dadka degaa afaf kala nooca ay ku hadlaan waa waddan dadka degaa qoomiyaad kala ay yihiin qaar waa flamingo oo waxay la qoomiyad yihiin holandiiskay la dad yihiin af holandiis bay ku hadlaan qaybta kale af faransiis bay ku hadashaa meelo yar af jarmal baa lagaga hadlaa waa dad afaf kale nooca ku hadla dhaqamo kala jaada haysta axsaab tiro badan leh axsaabtoodii baa heshiin weyday dabeetana dowlad bay samaysan kari waayeen imisay samaysan kari waayeen in ka badan 500 oo maalmood bay bilaa dowlad ahayn waa hadda maaha waqti hore waa qarniga 21aad weeyaan waqtiga ka warramaya 500 oo maalmood in ka badan ayay dowlad samayn kari waayeen oo la heshiin waayey haddana systemkii uu shaqaynayay may odhanin ra-iisul wasaare iyo wasiirriya waxba dooran kari weyne waa inay kala eriya walo waliba dhankiina u buuxo meesha doontan ka dhaca may odhanin ee waxay oggolaadeen dowlad tasyiir samaysa bal systemku inuu sii shaqeeyo inta un laga heshiin karo aan wada hadalkaa wadna intaan ka heshiin karno 500 oo maalmood kadib markay dhaaftay waa sanad iyo dheeraad ayay 8 xisbi ku heshiiyeen siday wax u wada wadi lahaayeen inay dowlad bal wada noqon karayaan bay ku heshiiyeen taa macnaheedu waxay tilmaamaysaa inay isu sabreen oo intay bal mashkiladooda xal u helayaan inay isu sabreen camar ibn alcaas meel fadhiya nin la yidhaha almustawrad alqurashi ayaa wuxuu yidhi waxaan ka maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo yidhi taquumu saacatu waruumu akharu nnaas qiyaamuhu wuxuu dhici doonaa reer ruum waayo nimankan yurubiyanka inuu naqaano oo dadka u tiro badan dabeetana camar baa wuxuu ku yidhi absir maa taquul war u fiirso waxaad sheegayso sahabiga kale wuxuu yidhi aquulu maa samictu min rasuuli illah anugu waxaanaan sheegaya waa waxaa nebi maxamed afkiisa ka qaaday calayhi salaatu wasalaam marka camar binu caas waa daahiyat alcarab waa nin caqli badan buu ahaa baa la yidhahdaa siiba qadaayaadka siyaasiga iyo maamulka khabiir buu ahaa bay yidhahdaa camar ibnu alcaas baa marka wuxuu tacliiqiyey weedhaasi ah taquumu saacatu waruumu akharu nnaas sidaa aad tidhi hadday jirta buu leeyahy nimankani dhaqamo 4 ama 5 bay leeyihin buu yidhi waa maxay dhaqamadu ku sheegay innahum laa axlamu nnaasi cinda fitnati buu yidhi waa fitanka iyo imtixaanku markuu dhaco waa dad dulqaad badan buu leeyahay waa dad dulqaad badan aan markiiba iskula yaacin masiibadu hadday dhacdana wa asracuhum ifaaqatan bacda almusiiba waa dad miiraabi og qofka marka dhibtu qabsato mararka qaarkood waxa suurtagala sidii wax waalanba inuu u dhaqmo laakiin qofka caqliga leh markiiba wuu toosaa waa baraaruga wuu gartaa waxan jira mashaakilku intuu leegyahay dabeetana wuxuu yihi waa dad ah asracuhum ifaaqatan bacda musiiba weeyaan buu yihi wa awshakuhum karatan bacda fara carar dabadiina waa dad soo jeesan og wa khayruhum limiskiinin wayatiimin wadaciif dadkooda liitiya masaakiintoodana waa dad u roon wa khaamisatun xasanatun jamiila buu yidhi iyo shay shanaadna waa inay leeyihiin dadkaasi hadday tiro badanayaan yacni may tiro bateen buu leeyahay hadday dad isdilayo markiiba iskula yaacayo iyo wa isku madhan lahaayeen laakiin wuxuu leeyahay
وأمنعهم من ظلم الملوك بقرد ظلم جودنا ودتك أديدي أوك يعني ما دحضوا إنا الظلم دنا الديدا أيها الأحبة إلى هي آيات كهرين وأخرين ولا تنازعوا في سورة الأنفال بكتشرتها وغزوة بدر قداشيت سودكتي تجربة waxaan u jeedaa macluumada loo sheegay saxaabada lagu madayna tajriba la galiyay غزوة أحد بعد عضي إلهي وحقوت المامة ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون إلهي وحلي بلنك والله يدين بلنك هذي ويدين أوفي مركا قال هذا قماذا يسمى إلهي لكن قور ما تشبتين وحا ضعيفتين مركي التنازع قشين بالي كوحدي ونبي قماش صار مركي مرنتين نزاع دعي أدبتنا خالد كفايدة يستي وعاصدين وحي نبي قيدن فري بالي وحيدن كتشري قار أدون دونية يقار آخرة دونية بل لكن إلهي بقى هذا هدنا إذن كوعي بل لا إذن اتحامه وأنا ربي إذن عفية كدب إلهي كورما يا وحي دعي مركزي يا عيسين با إلهي لي أيضا سوتشي سريني ونبقون حق الدنبا إذن كده واقعي فأثابكم غما بغم وحال يدنكو أبا المريا بيقول غم بغم علماء أيضا نفسك سيكولوجي dadka qaar baa marka problem isku ku dhacan dawakha oo waasha oo dhakhtarka la geeyaa siiba dadkan gaalada u badan aan ilaahay iyo maqaadirta toona aaminsanayn sessionska dawada ay daweeyaan waxa kamid ah inta mashaakilaadku ku dhacay bay meel isugu yeedhaan dabeetana waxa la dhahdaa isu warramo sheekaysta nin waliba ba'iisiyo jabkiisii buu ka warrama marka adigoo islahaa wixii kugu dhacay dadba kuma dhicin ayuunbaa mid balaayo kaa weyn sheega aad arkaysaa markaasaad sodhanaysaa wallahi taadu ay qarsaabay hesho ninka kani wuxuu ka warramayo waa lagu daweeyaa bay yidhahdaan inuu awal qofku ismoodaya in isagun balaayadu haysato culamaai nafsi waxay yidhahdaan aayadatan faahaabakum ghamman bigam markii hore way jabeen oo murugaa haysay oo dagaalkii inay jabeen bay moodayeen tii hore waxay ku ilaabeen markii la yidhi nebigiiba dhimay bala ka weyn ayay maqleen tii hore markii la ilowsiye haddana nebigii oo nool ay arkay calaa kullin waxaan uga socdaa saxaabada markii hore war baa loo sheegay markii labaadna tajribo nololeed baa la geliyey inay arkaan tanaasucu wuxuu leeyahay ayuha alaxiba warka waxaan ku soo koobayaa ma aan isdillabaa xal ah oo kala xoog badan noo cid ha la quusiyo soomaaliya dhowr boqoloo sannadood bay isdilayso reer madhay ma jiro miyaa ku maqasheen cid la waayey way kala geeri badataa un reerkaana 10 baa laga dilay qoladaana 50 baa laga dilay qolada 50 dishaa tiraahda waa guulaysanay way kala geeri badataa laakiin mushkiladu waa sidii حل ما يهلين محا حلقة بنا آدم دوني دمان تكون نولي تجاربتي سمركو أروريي صدح وضبو أركاين حلتهي صدح وضب كيل لما ربا حلبو أركايا دينتي عركة كسود دكتين ربي سود دكيينا isla saddexdan wado un bay tilmaamtay inuu xal yahay wado waxa weeyaan bini aadamku inuu kala roonaado cidi ay xuquuqdeeda ka tanaasusho waa isqabannay
وforgiveness بيدا أنا كعفية كودا يسين وضع نوران عد بدل قاضتي عد بدن تجودا ومضى أكتي ووضع ضدك كودا تشوي كربيدا هذا جد كلبان اللي قوة تشوي كربيدا هذا ومصالحة وcompromise وين أقبل له إني نسوت تنازل وربلدنا وحكتك أنا وحكتك ما اللي حاسوني ما أنقر قرطن جد كصدق هذا اللي هو ده شوي كرابين هذا وأنقر نقصن وينو شرا مرجع يوم وحي نسقوا فقصنا إن لو النقطة دبتنا نقول بدو ديس يقرتي سشيكتو عدي لقى قرها لا دين وضدا مرتو عدي قرها شانه إنه مركز واحد قاضي حقيقي صدح ذا كو وحا أصل هذا قرنقص لمريو إنه مرجع جرى الله نقنيه إنه كمسلمين إلهي حين لي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إلهي حين لي وكو إيمانك لغا هلايو الله إيا الرسول كي أطيع إيا عدي مركا مدح كدغتانا إذن كمده هدا إسقبطان إذن كإيا مدح دا ما إذن كدحدين هدا إسقبطان وحكستو إسقو قبطان الله إيا الرسول عليل وحي سود دغي هنقضى وحاكو كلا بحيسان وكلا قربحي كرتان مركا وهدي الله الرميسنتين يا مال انت آخره بالليل بني آدمكو وحاو اسكو قبطه هدو وحوداقا يمركو هروحا في عنا وحقرطه ولا تسموها أن تكتبوه هكذا لنا بالدينا قرطان صغيرا وكبيرا وحدونا يا عادي شركة هالنقطة دولة ما هالنقطة وحكير هالنقطة وحدتك يسكو أبيه هشيسكو يهي ولكن أنا خلاف سنين وحي يسود دقي وين وجراه نبغى حط الماء المسلمون على شروطهم مسلمين تو ووحي شرطك انك وحي اي قرتين يكو هشيه مسائل كإداري انت بدل القرآن كي حديثكو سيقود بيوت الماما لكن عقود بني آدم كوغل وكونتراكتس قور هالنقطة شريع مريا لكن دوينا وحكو هشيسان مهران نقطة وحنا نقطة وحبا كو هشينيسان شركات هالنقطة وحبا كو هشينيسان فإذا سوق ليا لنسان خسارة سوق ليا وحبا كو هشينيسان ويدين قرمية دولة نما هالنقطة وحبا كو هشينيسان هشيس كاسي وينا نقولين هشيس حارانتي حلاشي حقا لك سودة برينية لكن وين النقطة وحيابها ليدين وقلينا وحكشرط تستان شروط إذا كورمي حين ندتكو صدح داو ضميدو بكو كلا بحكرا قرآنكو أفرتنا آيادودا كم إذا إلهي عفو يصفي كورمي إن ليس عفيه إن ليس القاطو forgiveness خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ومسألة ونبي وكون أرطيب نبي محمد بعد أرطيب ودارتي سو حكم ده أدون إلهي عفي وعفيه ومكر بيعز موياني وحكاله شرف مكقارا ووضع لو كلا بخو سومالي دي هورنا وضع يا تقاني وضع لباد لو كلا بخا واتو القرآن يقول والصلح خير هشيس وخير بإلهي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إلهي كعب صدر
ووحي دحدينا يالا هجاتي يا رب الله سبحانه وتعالى ما أنت وحنا يقول المامان القانون الدولي أما السياسة الدولية أما محاكمته وحيدا أن قاعدة ظهر الرئيسة وحكو حكومان أما قوة ضاني وحويا التفاوض والمصالحة بيننا دولة هنا قدية صارا وقوضة هضلام وحا إلا لقيه الشيني محكمته أي دون ذا استعمالا حتى قوان شرعي هنا وحيدا هذا كيس كمرك ولا نجيستو بل لبض اللوير يقولوا كيلو دبدا يصرفوا إنا سوه الشين كرتان صوتين هدات سوه الشين كرتان وحي أكوه الشيسان بين محكمته يدينوا كلامس مركب حالة تجابية تفاوض يا مصالحة اسكت يا بالنا يدكم وركيني لدقيسي كيس كينو نوع عادي هاي بلدكم دحدينا هنا يسوي تنازلي كرتان بالنا سياسة الدولية يورد من الباب كاسك شغيسة ووحي هذان win-win solution بين هذان يعني نظام كهشيس بين هذان لبا متبون الله zero sum game بين هذان عدوننا إنه لا تقوى كلنا لقى تخلصه وسمرتو كي تعشي واحد كستولا يسوق بطين من الحضارة سؤال أساسي تعشي بني آدم بيسوي وجعلي هاي win-win solution لبدأ إنه ببلا نقول يسنو بلا مال دحى يسقون نمانو مال دحى بعدنا نقبلي كرتنا نقبلي كرو أين يسقون نمانو عد وحس قدر ستة قيس باوية نني قبر باوية عد وحس قدر ستة نني قبر باوية إلهي يقول عليه فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا دم بكركي نما هبا للي ننكي يقبر هدي أي صلح رادية والصلح خير بإلهي والصلح دمانتينا وخير بإلهي كنت المامي نفط بإلهي بخيل لما الأرورية نفط وحقيقية وإنت يدي أنا قرلدا واتعشها لكن إلهي وحده وإن تحسنوا وتتقوا إن هذا الإحسان سميسان ووحا قال وحكا تنازشو أيها هذا وحا لوه شيني وضقي السلام مدوى لما هدو إلى هذا حق الله يكتق ما يقول وشري ما يقول حقوق قوة سنكلي مجرو هدتكو يسو تنازليو إحسانيو يسو سمفليو ما لنبا مدينو رون هذا عقل وكتشريو كل بكي عروضا بلنك كلاو دول غاطي ساسي قريو كل سيء سدرت بإلهي وصلح خير وحكست وصلح خير النبي عليه الصلاة والسلام يقول بيسا كجرا قال إلا بس حبيو دين سوايستو مساجس كده حديث كعب بن مالك ابن حدرة من الله ينهضه صحيح كاسو النبي داهس كالرجل مركاوح الله الله ابن أبي حدرة بن نبي الله الله وحكوي قتل ماما كعب بن مالك والله ضوء حوت الماء ورنك النص كدا نص حولها توهي سطو نص كدا يسمى نص كلا هسك بحية كعب بن مالك بقى يلوانا قبل نص كهيسي كي كلا يلي وحرم هيو نبي حقول قم فقده الورك اسكنا في كعور الدور صوصي نيكا نص كيس حرم هيستو سوق وحلوي من يتقول لبدي سيقو عموديسي انتو كنتدي ايو مريه سيريا يقدريا سلام مسلمه ماشي صور مرطوار تينيكا سحابي مريه سيقدا يا عمود يا كنتن بس و جيرانا و شيغay dabeetana deyntii bay ka bixisay intiga laagu meel wuxuu isugu keeno kanna waxba ma hayana wuxuu dhawr ka conika wuxuu doon waxa ma hayay ka qabal bixisay kii wax lahaana wuxuu ku yiri war nuskada meel wuxuu isugu keeno hadii taa la waayo cid wax afida hadii la waayo oo la waayo maslaxo iyo dadka la isugu sulxo meel dhaxal isugu keeno هل طريق بابنا صاحري والقضاء والتحكيم انت تكلك الحكومه
الكتاب والسنة وما اتفقوا عليه من شروط اللي حكمه هذا شركة إلا واحد يتعلي وحي قرتين شرع وافق سنة هي شريعة إلهي فقهي وحي قرى كتاب السنة كيالي إن تذكر الله قرنقه واحد هذا المصالحة يعفسكو قلوب تي ولا ليسا قضاء نبي هذا حق قوية قلوب ما يهوى قضاء قوية محي سومالي الدوابة مهما هودي محكمتها قاري لبنن كما بدا قصل السبعين هذا حق بوت الماما قضاء قويلة رقبشا وحق آميو waxaa dhici karta adigoo gar leh in lagu gar weysiiyo laakiin qadaaga waxaa loogu talagalay inuu tanaasuca dhameeyo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waa ii imaan doontaan isagoo midkiin midka kale ka aftahansan yahay ama aanu bayina haysanin dabeetana mid baan xaq aanu lahayn u goyn doonaa ee hooy هدان حقارة لهين كوجو يعني نبغى حط الماء هنا نحلله قطاب وإحنا ما حلاليه وإحنا ما حرام تلميه هدان وذا دولي بتان وايد كلا حكومة معناه هذا ما هم مركب كو حكومين وكو حلاله بيه هدان دكتينا والله هين سيدي أبو حران وبيه إنه بوحول إن كان قبل نارد وشرو إن كان حق أمر الله هنا نسيه وقبل نارد ما كو شري وهذا محوم على السمين هي هدين نما وحلهين بو وحلي كرو waxaa dhici karta qofku inuu markhaati waayo inuu bayino waayo inuu wax u caddeeyo waayo dee xal maaha inay weligoodba isa sugnaadaane waxa xal ah wixii bayino lahayo in wax lagu go-aamiyo dadka la kala diro qadaagu markaa munaasacadu dhameeya asliyan waa intaa waa dhici kartaa hadday bayinaadku cadiyin raddi lxuquuq inuu sameeyo laakiin waxaa kaloo dhici karta inuu qofku bayina iyo caddayn waayo waxaanu lahayn loo xukumo waa dhici karta laakiin munaasacadu inay dhammaataa baa la rabaa adigu waxbaha sii guuxu waxba ku tari maayo mar haddaad bayina caddaysan kari weydo waxba kuma hadhin aakhira sug maxkamadda ilaahay baan waxba ka qarsoomin oo wax walba kala xukunta وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وروحي أسقط بطان إلهي كتاب حكم كيسكويا ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وحكستو أمورين كيجروا أما قضية سياسية هالنقطة مثل قال هالنقطة مثل بلشيد هالنقطة مثل قانونات هالنقطة إلهي كتاب كتاب كما وحلو سودة شيء إن اختلاف قلبه قريان كان الناس أمة واحدة إلهي وحد الماء ومدتكم ومدكم التوحيد هيسته هذا فاختلفوا دبتنا إلهي الرسول بصادر مبشرين منذرين ليحكم بينهم إن لقوك الحكم مدتكم وحيسكوا هيين لقوك للصار وحكوا سوى قبينية wadada bini aadamku u kala baxo ee sharcigu sheegay ee caqliga bini aadamka iyo tajribadiisuna ku raacday haddaynu mari weyno waxa ka soo hadha waa aan isdillo yaynan heshiinin weligan baa aan ishaysanno aan kala guuro kala yaacno natiijada ka soo hadha waa intaa dad saddexda qodob diido midanaad marto soomaalidu markaa dhibta haysataa wuxuu yahay mushkiladda xalkeedaaba ka mushkilad badan iyaga mushkiladda ku dhacda xalka ay ku xalilayaan solutionkoodaaba mushkilad israac kasii dhib badan dabeetana waxaynu xal badnay ina yareeya ina kala rara reer walowba magaaladaadii qabo markaynu kala guurayno magaalada lafteedii baynu da isku haynaa jilib walowba xaafadeg xaafadda markaynu degnana afarta ilmaadeerta abaa ishaya idan mushkiladda waa sidii dhulkoo la kala goostaa mushkiladda ma yareeyo awal reer baadiyuhu dee mala doog iyo waxba u kala guuri jiray dowladnimo looma kala guuro waxba kama tarto
marka kelmadaydu waxa weeyaan waan ku soo koobaya dadka kama dhib badnin dunida in badan oo ka mida baan mara oo dad kale noocii degan yihiin weli waxaan rumaysnahay soomaaliya inay u mushkilad yartay marka bulshada adduunka ku nool loo eego waxaan rumaysnahay soomaaliya inay aada u mushkilad yartay laakiin waayeel iyo waxgarad bay weydi ciddii dhibta isku haysan kala saari lahayd bay weydi waddadii saxa ahayd ee loo mari lahaa mid ma noqon karno iyadu waa been cidda ku tiraahdo wax kasta waa lagu midoobi karaa wax badan baynu ku kala gedisnaan doonaa laakiin si loo wada noolaadaa jirta si maslaxadda guud loo wada ilaashadaa jira si dacfiga la ysaga ilaaliyaa jira si masaalixda loo wada xaqiijiyaa jirta wixii dhexdeennee muran yimaadana waddadaasuu bini aadam ku kala baxaa ilaahayna waddadaasuu inoo tilmaamay inaynu ku kala baxno waxa habboon inaynu xal u raadino siiba dadka waayeelka waama salaadiinta waama cuqaasha waama waxgaradka u ahay inay dadka waddada u horseedaan sala allahuma calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin